السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركه هراء waxaan idinku hambaliyeynayaa ka soo qayb gasheen arrinkan maanta aynu isugu nimi oo aynu kaga hadlayno tarbiyada caruurta iyo waayaha lagu jiro imika waxa dhacday wiigii hore ama usbuucii hore ayaa halkan aanu ku qabanay isla mawduucan laftiisa anagoo ka hadlayna dabadeedna qaybo idin kamida ayaa codsado yiri dumarkii ha loogu celiyo sidaas aanay ku timi mas'uuliyadana idinka ale runtii waana ku mahadsantihiin maantana waxyaabaha kalifaya waxa kamida xaaladii shabaabku ama dhalinyaradu maanta meel xun bay maraysaa meel aad u adag bay maraysaa haddii ay tahay waxyaabo badan oo jirin oo inagu soo kordhay oo mukhadaraadku ka mid yahay si xad dhaafana imika wadanka ugu socda haday tahay shaqo la'aantii oo aad u farabadatay oo dhalinyaradii ay tahay inaanay shaqo helin xataa haday jaamacada ka baxaan mujtamaci oo qaybsamay oo laga yaabo in qabyaalad iyo imtixaan meedhan ku dhex jiro markaas waxyaabahaas iyo waxyaabo la mid ah ayaa kalifaya inaynu ka hadalno wixii keenay markaas su'aasha meesha taala waxa weeyaan maxaa keenay waxaan inay dhacaan oo ugu muhiimsan waxaana isugu biyashubatay arintaasu inay tahay tarbiyadii oo xumaatay iyo tacliintii oo xumaatay taasa ka mas'uula iyo mas'uuliyadii haddii ay tahay tii waalidka iyo haddii ay tahay tii cidii kale mas'uulba ka noqonaysay dhalinyaradaas aan sideedii loo gudin waajibaadkii saaraa marka waxaynu ka hadli doonaa haddii ilaahay idmo halkan aynu ku soo koobi doonaa 3 arrimood oo aas u ah qofka ibn aadanka ahi inuu noqdo wixii loogu yaani ilaahay wuxuu abuuray inuu noqdo ayaynu ka hadli doonaa isla markaana aynu mas'uul ka nahay waliba hooyooyinku mas'uul ka yihiin mas'uuliyadda ugu weyn ee hooyooyinka saaran tahay caruurteeni laba u qaybsan tahay mid ka gidaarka fadhiya oo aynu xaalkiisa la soconno iyo kii masaajidka loo soo dirayay oo aan tarbiyadiiba lahayn oo la leeyahay ilmahayga masaajidkii buu jiraayo isagu maaha kuwa dibadda jooga laakiin dhibaatooyinka masaajidada ku hayaan ay aad iyo aad u fara badan tahay markaas bal waxaynu eegaynaa meelaha wax ka qalloocsameen anugu macallin baan ahay xisaabahan dhigaa inta badan laakiin in badan baan waxbarashada ku dhex jiray waxa markaan idhi maxaad ka hadashaa dabeedna waxaan arkay oo maskaxdayda aan ka sawiray inaan laga yaabo inuu 13 jir yahay oo 3 meelood markaad ka eegto 3daba aanay jirin inankaas waa marka hore waxaad oranaysaa marka ugu horeysa nafaqo darra ka muuqata badankooda gidaaradaas ay fadhiyaan xataa lafahoodu ma aha sidii lafa ibn aadanku u kor jireen waa ta koobaad marka waxaad arkaysaa ilmahan inuu dayacan yahay talabaad ee ilmaha aan ku arkay waxay ahayd qaabka uu naftiisa sawirkiisu yahay timaha ku yaala wuxuu xidhan yahay siduu yahay taasuna waxay tustay inaanu meelo tarbiyad iyo waxbarasho iyo akhlaaq lagu sameeyo midna inaanu ka imanba taasna ay noqotay ta saddexaadna waxa igu soo dhacday inuu yahay kaasuka dadka telefoonada kala booda ee tuuga inuu yahay baa igu soo dhacay 3 arrimood baa igu soo dhacay dabadna waxa sidee wax looga bedeli karaa xagee ka qalloocdeen ibn aadanku marka uu dhasho ilaa marka uu hooyanayo waddo mara wadadaas oo maro
iskoysiya ku yaala iskoysiyadaasu uu qofku marayo waxa jira meelo markaa uu ku lumo haddii markaa aynaan iskoysiyada qofku ku lumaya aynaan ogaanin waxa dhacaysa markaas inuu kaasoo kala soo baxo inuu noqdo inaanu shaqaysan inuu noqdo inaanu waxba baran inuu noqdo inaanu ilaahay iyo aakhire iyo cid uu ogyiba jirin uu noqdo sida xawayaankaas oo kale waliba xayaanku xeerir bay leeyihiin ay ku dhaqmaan marka 3 meelood ayaa ilmaha loo baahan yahay in lagala socdo 3 meelood ay tahay in lagala socdo ta ugu horeysa waxa weeye dadka qaar ay kaligeed eegaan waa tacliinta waxbarashada caadiga ah waxa kale oo iyaduna jirta tarbiyo wax la yiraahdo ka duwan tacliinta caadiga ee ilmuhu dhiganayo waxa ka sii khatarsan intaba xogogaalnimada ilmaha inaad xogogaal u noqoto xaguu tagay xaguu joogaa muxuu qabtaa halkeebuu maraya taasaa ugu sii khatarsan oo ma garanaysaa loo baahan yahay marka 3 arrimood haddii aanay iskarab socon oo aan tacliintiisii la eegin oo aan tarbiyadiisii la eegin oo aan xogogaal loo noqon ilmahaasoo mas'uuliyad la iska saarin waxa soo kala soo baxaya marka waxaanu ka bilaabaynaa geedka marka uu baxayo ee hore haddii aanu toosin marka daba looma taakalo waxaad arkaysaa qof kule maalan muslim baabanayba ayuu ku leeyahay quraan baa laga yaabaa inaad ku akhrido ama lagu akhriyo xadiis ama diin lagu akhriyo oo kariba weydo maxaa keenay markii ay ahayd inuu karo waxani ayuu soo dhaafay manuu arag dabadeedna waa geedka qaloocan uu noqonayaa marka dambe marka waxaynu ka bilaabaynaa bal marka ugu horeysa halkeebuu qofka aynu ka bilownaa inaynu la soconno iyo maxaynu meel walbana baraynaa waxaana jira meelo caruurtu ku hadho oo ama hankooda dila ama ka reeba qayrkood haddaanad halkaa ogeyn ilmahaaga qayrkii uu kaga hadhaayo waxay noqonaysaa markaa inuu marka dambe isla wareertaanu qayrkii ka hadhay noqonaysaa marka halkan waxaynu u bixinay iskoysiyada tubta nolosha haddii aad socoto oo wadadii aad haysay ay wadooyin kala gooyaan meel aad ku socotay haddii markaa aanad ogeyn yani iskoyskan aad ku soo dhacday ama aanad diyaar u ahayn waxa laga yaabaa inaad mid kale ku dhacdo dabadeedna taasoo ay keento inaad ambato haddaba waxaan idiin sheegayaa xaalad walba sida aniga igu muuqato meelaha loo baahan yahay in iskoysiyadaas inaynu ogaano waxaynu ku bilaabaynaa marka ugu horeysa halkeebaynu ka bilownaa tababarka ilmaha waxa ay caruurtu wax ku fahmi kartaa ama ay wax ku qaadan kartaa caadiyan markaynu ka soo qaadno 5 markay soo gaadhaan 5 jir markay noqdaan marka da'da ugu horeysa ee 5 ilaa 7 maxay tahay inaynu ilmaha barno marka ugu horeysa markuu 5 jir yahay ilaa 7 jir markuu yahay maxay tahay inaynu barno waxaad aragtay in badan idinkoo hooyooyina waxa aragtay laba yaryar baa waxa laga yaabaa inaad laba baabuur oo yaryar soo iibiso dabadeedna mid markiiba uu jabiyo waliba ka yari dabadeedna uu ku ooyo qabsado kii ka weynaa kii uu haystay isagoo kiisii jabiyey dabadeedna aad tiraaho si halkaasay horta ka bilaabmaysaa adabdarradu laakiin haddii aad odhan lahayd war ama inan ha noqdo ama inan ha noqdee adigu kaasaad lahayd kaagiina waad jabisay kana malihid mana helaysid haddaad odhan lahayd cadaaladda halkaasuu ka bilaabi lahaa iyo qofkaa yari lahaanshaha laakiin dee uu adigan yidhi wuu kaa yariya hooyesii wuu ku ooyaa hooyesii dabadeedna waa kaa dadka jagooyinka ku qabsanaya imikeena jagada anigaana
teeda labaad 5 jirka ilaa 7 jirka intuu ku jira ilmahaasu in sharci jira waa inuu ogaado oo wixii uu galo abaalmarin ay leedahay ama abaalmarintaasu ha noqoto mid ganaaxa ama ha noqoto wax uu qabto wax lagu siiyo waa in sharci inuu jira ilmaha yar uu ogaado 5 jir ilaa 7 jir intuu yahay oo dabeedna ha dhowto uu yiraahdo waxa sameeyo waxa ay ku dhacaya laakiin inuu iska socdo oo aanu taa ogaanin taasi waxay keenaysaa ha dhowto xakama qabtaba inaanu ilmahaas yeelan waa in la baro mas'uuliyadii inay jirto ilmaha yar oo la yiraahdo maradaadan aad xidhantay cunto halka waxba kaga yaala yaala maradan aad xidhantay adigu miyaanad lahayn waxaad maradaada waxaan uga biin weyday inaad adigu ka biinin inta maradaada waxaan ku yaala kabi miyaanad adigu mas'uul ka ahay buugaagi maxaa waxaan mariyay yaala buugan adigu miyaanu buugaagi ahayn marka inuu wax mas'uul ka yahay oo waxa uu mas'uul ka yahay lagu la xisaabtamayo waa inuu ogaado waxa kale oo loo baahan yahay waxyaabaha dhinaca edeb darooyinka oo kale haduu qof ilmaha yar sameeyo waa inuu ilmaha yar ogaadaa wax wanaagsan iyo wax xumeynay jiraan ee wax walba isku mid isugu noqon muddadaas waxa caruurta aad loo baahan yahay in la baro higaada tirooyinka iyo qaybinta inuu qaybo quraanka qaar baa marka ay waxaan anigu aqaanaa qaar markay 8 sano joogeen quraankii oo dhan xifdiyay quraanka ay xifdiyeen waxyaabo badan buu keenaa horta taa idinka lafteenu baraka ka helaysaan guriga uu joogay ilmo quraanka ku xifdiyay laakiin way ilmaha laba meelood ayuu kaas ka difaacaa haddii uu yaraanta quraanka ku xifdiyo ay tay marka ugu haboon ee uu xifdiyi karo quraanka waxay sameynaysaa marka dambe ilmahaas hadduu weynaado oo dabadeedna khaladaad uu arko wuxuu xusuusanayaa quraankii uu dhigtay taasu marka quraankaas weligii wuxuu noqonayaa mid ilaaliya waxa jiray nin la soo kulmay qadiyado oo xataa diinta laga saaray oo dabadeedna markii dambe laakiin yaraantiisii quraanka la xifdisiyay markuu weynaaday ayaa quraanka qalbigiisa ku soo dhacay isagoo in badan ka maqnaa diinta markaas xifdiga quraanku waxa kale uu keenaa caruurta inuu u fududaato oo aad ugu fududaato inay waxa kale qaybaan bartaana maskaxdooduna way ku furfurantaa marka ilmo yar oo 8 jir oo quraankii oo dhan haya wax kasto kale loo dhigana si fudud buu ku qabanaya waxay u fududaynaysaa ama xisaab ha noqoto ama luqad ha noqoto ama wax kale ha noqoto waxa soo dhan bay u fududaynaysaa in waxyaabaha kale lagu koray inaga maqan waxa kamida haddii ilmaha guri aad ku hor joogto laba meelood un baa imika magaalada marka la joogo caruurtu tagtaa ama guriga lagu hor jooga waxa la yiraahdo edeb darro sameeyna ama waa ka dibadda ordaaya ee dabeedna wax walba la soo kulmayeen laba xakameyn kareynin waqtiyada fasaxiyada oo kale ee caruurta ay waqtiga haysato anigu waxaan idin kula talin lahaa in meelaha miyiga kale loo saaro oo dabadeedna miyiga xoolaha iyo dadka iyo dhaqanka iyo waxyaabo badan bay bartaan bal idinku kombeer gareeya isu eega bal ilmaha yare miyiga hadduu 9 jir kaga yimaado mesela waxa laga yaabaa markuu dhowriyo 10 jir yahay inaanu ilmahaasu aanu qalqalooxba yeelan baa laga yaabaa kartina uu yeesho wuxuu miyigu u ogolaanayaa inuu dhaqamo badan barto wuxuu ogolaanayaa inuu dhul banaan oo ororta helo wuxuu ogolaanayaa inuu waxyaabo badan wax kale kaga fakiri karo ku keeni karo uu barto marka beriyii hore waxa jiri jiray wadanka waxa jiray berigii hore marka caruurta la fasaxo ee khaasatan waqtiga gugi ay tahay miyadaas loo saari jiray ilmi isagoo wuxuu soo noqonayaa koray ayuu soo noqonayaa haddii laakiin aad gurigi ku haysanade waa maxbuus oo halkan uu ku joogo 12 bilood hadda dibadda ku sii daysana waad ogtahay marka anigu waxaan idin kula talinayaa cidda yeeli karta taas
in waqtiyadaas oo kale ma lihin meelihii ma garanaysaa caruuruhu dhulka yaaci jireen ee lagu ciyaari jiray waxyaabo badan ku sameyn jiray in badan baynaan inoo suurto galaynin marka anigu waxaan oran lahaayo ta ugu wanaagsan ay tahay in caruurta yaryar dibadda loo saaro oo waqtiyada lagu tala galay inay hadii meel miyiga la geyn kara la geeyo waana arki doontaan oo isaga intiisi ka han weyn oo ka karti badan oo ka af badan buu soo noqonaya ilmahaas haduu xataa 3 bilood maqnaado oo ka adag way maalin oo dhan buu ordaya halku doono cararaya markaas taasuna waxa weeyaan mid loo baahan yahay ilmuhu markuu yar yahay waxa kale oo loo baahan yahay aabaha iyo hooyadu inay u noqdaan cid ku taan karo aabiba qaad gurigii la yimi ama sigaar buu cab ilmiina waxa la yiri sigaarku waa xaraan ilmihina waxa lagu yiri sigaarku waa xaraan maqaadku waa xaraan tarbiyadu kaas yeelanaya waligiiba ma jirto dadka guduun inta badan waxyaabo nooc siyaabahaas oo dhaqma ninba macallina wuxuu yiri ku yar baa caruurta caay dabadeedna hooyadii baa igu yeeray malcaamad buu ku jiray waa loo yeeray markii loo yeeray ayay tiri muxuu sameeyay waxa uu sameeyay baa lagu yiri tii aydi oo caay mid 2 iyo 3 goor ka weyn bay ilmi halkii ku caydo markaas uu macallinka iga wada baxay labadiinuba marka hooyada lafteedu afkan ay ku hadlaysaa ay guriga kaga hadlaysaa waxa weeyaan inuu qayb dhan buu ka qaadanayaa ilmaha tarbiyadiisa hatta tira waxbaan caaya adna waxba caay de socon maysataa marka aabaha iyo hooyada marka wad beelaha la joogo oo kale waxa loo baahan yahay in uu noqdo ilmaha tusaale waxyaabaha kale jira waxa kamid ah oo waliba dadka dibaddu ay leeyihiin dibadaha ku nool oo kale waxa laga yaabaa qofku ama reerku ama aabuhu inaanu shaqo tagin dabadeedna waxa welfare iyo cayd iyo waxa la yiraahdo la siiyo reerka ilmi dabadeedna wuxuu arkayaa aabihii gurigii fadhiya oo la biilinayo hadhowta ilmi han yeelan maayo oo markaa wax ku keeno ilaa waxa noqo anigu waxaan garanayaa iyadoo la yiraahdo caruurta ay yiraahaan aabahay dib badan baa haysato shaqo badan buu qabaa waxaan doonayaa intaan wax barto inaan shaqada aabahay hadhowto aan ugu abaalgudo hadii markaa aabi aanu shaqo tageynba ee caruurtu gurigii la fadhiyo oo waxba qabanaynin dema oranaysid markaa ku dayasho male taasuna waxay keenaysaa nooca markaa ilmuhu inta uu yar yahay waxaan la baraa qayb bay ka noqonayaan ilmaha qaybta ay ka noqdeen saameyn bay dabeed ku yeelanayaan waligiiba marka da'daas waxyaabaha aynu ka soo hadalay ayaa marka ugu horeysay muhiim ah in ilmaha la baro hadii waxyaabahaas aan la barin oo ilaa 7 jir markuu yahay waxa la barin waxa weeyaan waa kuwan intay soo yaacaan guriyaha marka dambe shiidayeen garanaynin xaq gurigan leeyahay maalma kamid ah oo meel maraya ayaa 2 iyo 10 yar baa guri ku soo hagaagay mid dhagax bay qaateen oo way ku tuureen nimankaas xeer qabtaba ma ilahay loomana sheegin xuquuqda uu leeyahay iyo waajibaadka uu leeyahay iyo waxaan malaynayaa inuu cuntuun baa la siin jiro la iska soo daayay waxyaabaha kale ee waxa laga yaabaa wax yar oo dhalaalaya inuu gaari ku arko oo dabeedna iskaba goostaba marka inuu xaq leeyahay iyo in ibn aadan waxa leeyahay de lama barin marka arrimaha aynu ka soo hadalay da'da markuu ku jira hadii aan la sameeynin wuxuu u wareegayaa marka da'dii kale oo ka bilaabmaysa marka uu gaaro 7 ilaa 10 waxa weeyaan qaybaha nolosha ee ugu adag bay ka mid yihiin ilmaha markuu halkan ku jiro ee uu ku jiro 7 ilaa 10 waa markay ugu badan yihiin xarka goostaan waliba sanadada dambe 9 ilaa 8 ilaa 10 hadaynu imika halkan u baxno kuwaasoo kooxooba aad arkaysaa oo dibadda wareegayo dadka shiidaya marka xaaladda markuu ilmuhu taagay kuwa nooca noqdaana marxalada dambana horumar ma sameeyaan oo halkaas ay ku baaba'aan oo sidaas ay ku socdaan
marka marxaladaas oo kale marka ilmuhu uu soo galo 7 ilaa 10 wax self discipline la yiraahdo jira hadaanu qofku ka lahayn waligiiba kobca gaar leh kama soo dugduriyo waa maxay waxaas waxa weeye inuu markuu yira saacada seexanaya qofku seexdo inuu markuu yira waxa qabanaya wixii qabto in waxa uu ku ballan qaaday sideeda u fuliyo waxa weeyaan inuu qofku leeyahay tabuun ku tababaran yahay oo uu leeyahay inuu isxukumo dadka inta badan qaadka cunayo waxaasay ka baxsataa isxukunkaasiyo intuu qofku 100 balaan dhigo uu yiraahdo caawa waxa sameynaya berita 60 kacaya dabadeedna maalinta dambana 12 ku dhacaan marka self discipline ka waxa la yiraahdo ama waxaynu uga jeednaa qofku inuu isxukumo oo waxa uu sameynayo ila waxa saan sameynaya inta saan sameynaya waa halka lagu bartaa markuu qofku 7 ilaa 10 buugiisi baa la soo hordhigayaa waxa la leeyahay maanta waxa saad qabanaysa waxa kale marka arintaas waa muhiim in mar walba dagaal laga afuufan ma waxa loo baahan yahay si taag inuu dhaqan noqdo ee ku dhaqanka iyo barashada wixii aad ogtahay waa kala laba boqol wuxuu ogtay baa laga yaabaa inaanad ku dhaqmin waxyaabaha ugu yar akhlaaqda wanaagsan ma garanaysaa xiriirkii dadka xaraanta wixii xalaasha wixii waxa la ogoliyay ilahay ogoliyay waxa la diiday yahay waxyaabaha soo dhan inuu ilmuhu alla barada adan markuu yahay waxa kale oo looga sheekeeyaa marka dadkii wanaagsanaa waxay sameyn jireen iyo dadka xumay waxay sameyn jireen iyo mustaqbalkoodu wuxuu noqday sheekooyin noocaas waa inuu helo ilmuhu oo marka uu kala saari karo caruurta Soomaalida waxa looga sheekeyn jiray inta badan diin iyo waxa marka inta badan lama eegi jirin laakiin dhaqanka waxa ku dhisnaa waxyaabo badan oo caruurta ay wax ku barato sheekooyinka caruurta kale waxa wayaanka laga sheekeyn jiray dacwo wax qiyaamaysay dabeed waxa ku dhacay dacwadii waraaba wax cunay dabeed waxa helay marka ma garanaysaa waxay arki jireen oo meesha looga sheekeyn jiray sheekooyin aad u fara badan oo tusaya waxaan laakiin maanta waxa baynu haysanaa iyagoo asalaho siire la helayo oo dadkii wanaagsanaa wuxuu sameeyay qofkii xumaa wuxuu sameeyay mustaqbalkiisa wuxuu noqday dad uu yaqaan oo kale oo waxba baran waayo qaribmay waxyaabo badan baa loo sheegi karaya waxa kale oo lagu tahay in lagu baro da'dan waa da'dan 7 ilaa 10 waqtigiisa inuu maamulo ilmuhu oo aanu imika waxa laga yaabaa ilmaha ku jira dugsigii afraad waaba form 4 buu imika ka baxaya san dugsigii sare ka baxaya waxa laga yaabaa 8 saacadood inuu internet uu eega bilaa macna oo marka aanu ka fakirin waqtigaaga qaybiyo waa in waqtigaaga aad xukuntood manage garayso xukunto waqtigaaga oo aad jaangoyso inaad jaangoyso waqtiga waa jaangoynta waqtiga inuu jaangooyo waqtiga wax akhriso waqtiga seexo waqtiga iskuulka tag waqtiga sidaa yeel in lagu tareegareeyaa loo baahay marka dambe uu la qabsanaya uma baahanaysid adigu inaad marka daba socoto waxa kale oo la baraa marka inagu malihine dhaqaalaha maamulka dhaqaalaha horta hooyada Soomaalidu inta badan sidaynu sheegnay waa tan leh walaalkii gaarigiisa yaraa burburiyay uu ka yeeriyay markuu ku hooyo si kii kale waa tan leh marka laakiin waxa maamulka dhaqaaluhu waa muhiim waxa la sameeyaa musasaacaha kale waa tacaruurta la siiyo usbuuc baad siinaysaa qof walba maalin walba la siin maayo ama bil baad siinaysaa waxaad leedahay waqtiga waaba 9 jir bishaas oo dhan wakaanu saacahaaga maalintiiba ku shilin baad leedahay ayaad oranaysaa dabadeedna maalintii ugu horeysayba waa kan isagoo faramaro soo noqday ilmihi intii aad siisay bisha ugu tala gasho faramarnaan kaga soo noqdo dabadeedna waxa tilmee wuxuu yiri waxba ma haysto waxa dabadeedna la leeyahay waxaagii adiga qaatay waxa aad leedahay ma jiro adaa waxaagii qaatay nabadgeliyo laakiin mid baa lagu sameyn karaa waa lagu amaahinaya ama waa laga googooynaya markuu arkay inaan cid waxba siinaynin maamulka dhaqaaluhu baranaya hadhowtana sidaas uu noqon maayo imika kan 30 jirka inta dukaan u dhigtay laba cisho ku leefay noqon maayo kaas markaa
waayo dee waxba maad barin sidaad wuxuunu siinayso u cunayay intaad u siisaba maalin walba u siinayso baad markii dambana intii la egsiiso tiri dukaan baan kuu dhigayaa dabeedna 3 cisho kaga soo hoyday dhaqaalaba dee maad barin sida loo maamulo marka kaas labada arrimood waa muhiim waqtigan marka lagu jiro waa 7 jir ilaa 10 jir markuu yahay inuu markaa waqtiga uu maamulo iyo inuu maamulo dhaqaalihiisa ilmo inaan inanba ku yahay dabada si lagu xisaabtamo ogaadana inaan waxba la iska dhaafin qof walba wuxuu leeyahay inuu ama baabiyo ama haysto marka dambe dhaqaalihiisa iyo waqtigiisaba uu ka adkaanaya waanu ku dhismayaa sida da'dan laba arrimood baa xagga waxbarashadan maadigaana laga ilaaliyaa ama maadi ha noqoto ama diinba ha noqoto marka uu yahay 7 ilaa 10 waxa loo baahan yahay in qoraalka iyo higaada uu si wanaagsan u barto qoraal in la baro qoraalka la isku dul taago la ogaado wuxuu qorayo oo qoraalka la marka inuu wax qoro waa in lagu la dadaalo iyo xisaabaha yar yar isugeynta tirooyinka la isu geeyo tirooyinka la kala gooyo tirooyinka la isku dhufto tirooyinka la isu qaybiyo waxyaabahaas waa in la baro dabadeedna taasi waxay keenaysaa marxaladii labaad markuu u gudbo ee dugsigii dhaxo uu galo in dabadeedna waxyaabo badan u fududaadaan imika mid waxa laga yaabaa mid baa waxaad odhanaysaa fasalkeeto wuxuu odhanayaa fasalka 5aad baan hadda 7 kubadood haysato laba laga qaato maxaa ku haray soo saari maayo marka maxaa hadhowta sidee uu soconaya ilmahaas meelaha yaryar ee basic ee ma garanaysaa fudud inuu fartiisuna oo dejiyo waxyaabahana uu barto xisaabaadka yaryar dhinacaas tarbiyadina way dhinac socotaa haddii markaa tii tarbiyada la waayo oo ilmahaas aanad waqtigiisii eegin oonad barin waxa u bannaan iyo waxa aan u bannaanayn waxyaabaha aynu ka soo hadalnay aanad barin iyada lafteedu uu fakanayo imika haddaynu halkan u baxno koono walba xaafadan imika haddaynu marno waxaynu arkaynaa kooxo dhowr iyo 10 oo da'dana oo gidaarada fadhiya yaa dhalayde xageeyse ka yimaadeen maxayse ku dambaynayaan okay waa su'aal isweydiin la taas waxa kale oo wadaya da'dan ay tahayba khaasatan inuu ku dhameeyo quraankii markaa inuu wada xifdiyo badankoodu 10ka markuu in la taarigareeyo inuu markaa xifdiyo haddii ay ka sii yara durugtana ma garanaysaa uu markaa dhibaato ma laha waxa jiro oo kale oo ay lahaan jirtay Soomaalidu markii hore laakiin dadka kalena ay siyaabo kale u yaqaanaan koriinka maskaxda ee xalinta mashaakilka ama xalinta waxyaabaha waxyaabaha ka kan Soomaalidu waxay sameyn jireen berigii hore dhaqanka markaad u eegto waxay sameyn jireen hal xiraalayaal iyo waxa hal xiraalayaashan iyo waxan problemska xaafadu marka la caweynayo ee la weydiinayo dadka maskaxda way koriyaan waxa kale oo ay sameyn jireen oo iyada lafteeda go'aalaysigii iyo waxaas xagga Soomaalida sidaas oo laakiin qaybtan waxa weeyaan in ilmaha la yiraahdo bal hadii waxaas dhacaan sidaas loo xaliyaa haddii waxa kale sidaas dhacaan sideebaad adiguna u xalin lahayd marka intuu qaato fahmo wixii hore ayuu baaraya xalka kale ee meesha ka jira marka waxa jirtay anigu waxaan garanayaa sheekooyinka xawayaanka yaryar looga sheekeeyaa inta badan waxa Soomaalidu ku sameyn jireen laakiin ahmiyadu waxa weeye inuu qofkani noqdo qof markuu halkan marayo mashaakilaad xalin kara oo intood wuxuu sheegtaa waxa saadhacayo siyaasad noqotay siyaasad loo xaliyay haddii مثلا markii halka la maraayo aan la gaadhin maxaad sameyn lahayd inaad samayso oo kale marka in waxa la weydiiyo dabadeedna taas waxay keenaysaa in maskaxdoodu korto waayahay marxaladda ku xigta anigu markaan eegay waa marxaladda ilmuhu ama uu soo baxo ama uu ku baaboo marxaladan waliba khaasatan xagga waxbarashada waa marka uu 10ka soo galo ilaa 15
intuu ku jiro oo qaybna uu kuwan halkan yaacyaacaya markay socdaan ilaa 15 markay gaadhaan waxyaabaha aaminsan yihiin mararka qaar inuu qof weyn isu qaadanayo mararka qaarna uu isu qaadanayo in ma garanaysaa aan xakamaba haynin markaas waxa taas ku bilaabma xaaladda haddii aan sideeda loola socon xaaladan 10 ilaa 15 mid waliba way adagtay laakiin waxa xaaladda ugu adag ee ilmahaas ama ku saaqida ama wax ku barto tan marka waxa kuluma hanka ilmu marka halkan uu marayo ama han buu yeeshaa ama hanka ka dhinta waa ta koobaad beenta iyo qishka qishkuna waxa weeyaan itixaamadu eegto oo kale waa halkay ku bilowdaan haddii aan laga hortagin waa meesha uu kaga baxayo xaaladda marka dambe ee dugsiga dhaxaytan inta badan noqota qaybaha u dambeeya inta badan ee dabeedna uu secondary geliyo jaamacad haddana uu geliyo haddii halkaa ilmuhu ka dhaco dib dambe soo ma soo kaco tan marka dhinaca waxbarashada ka eegno tii akhlaaqda labadii hore haddaad soo dhisi weyda dhaqanka ilmaha marka ay cidna weydiin wuxuu sameeyo tan laakiin waxbarashadii baynu gaar ahaan u focus gareena ayaynu eegaynaa marka halkan la marayo marka aynu sameeynayna waxa weeye marka ugu horeysa sidaynu sheegnay in lagu adkeeyo qofku ilmuhu in lagu adkeeyo in wuxuu yiraa uu fuliyo waxa uu yiraa waxa saan qabanaya waa tii aynu nidhayno ismaamuli karo waxa saan sameynaya habeen dambe waxa saan sameynaya sidiisuu sameeyay taas waa taa waxa kaloo lagala sheekaystaa marka waa xaalad adag xaaladani markaad weynaato maxaad noqonaysaa maxaad isleedahay noqo ma dhakhtar baad doonaysaa inaad noqoto ma injineer baad doonaysaa inaad noqoto ma daaci baad doonaysaa inaad noqoto yacni sheekooyin noocaasa oo markaa ku cadaadiya inuu ilmihii markaas uu u adkaysto xaaladani ma fududa waa xaaladda ay markaa sidaan idiin sheegay dhinaca waxbarashada ama ku dhacaan ama markaa ay horumar ku sameeyaan marka waxa lagu magaranaysaa u noqonaysaa inay dabakariix u noqoto inaad inta badan ugu sheekayso haddaad dhakhtar noqoto oo kale maxaad samaynaysaa haddaad maxaa dhakhtarnimada lagu bartaa talo maxaad u baahan tahay inaad barato iminka haddaad doonaysaa inaad injineer noqoto inaad waxyaabahaasaa looga sheekeeyaa inta badan da'daa markayine ay tahay inay dugsigaa dhexe dhammeeyaan oo kale marka ogow laba arrimood oo kala garab socda oynu sheegnay mid waa tii dhaqanka iyo akhlaaqda oo mar walba meeluhu ku xidhayay ilmahaasu waxa loo dhigayo wanaagga loo sheegayo kaas laftiisu waa gooni waxa kaloo gooniye la socodkiisii meelahan markay galaan marbay madluun noqdaan shaqada ayaa ugu badan waqtiga ay soo gaadhaan inay dugsiga dhexe ka baxaan marka waxa laga yaabaa inuu madluumo oo dabeedna ilmahani haddii aan qaybtii dhaqanka aanad eegine orada casharkii ka soo baxuuna tiraaho xisaabtii lagu soo siiyay maaday carabidii lagu soo siiyay maaday wixii lagu aad waxaas inuu madluumaan laga yaabaa intuu meel isku xidho dabadeedna uu waxaas u la fiirsado dabadeedna adiga laftaada uu ku yidhaahana wareerini markaas si waxyaabaha looga fududeeyo waxaa loo baahan yahay in ilmihii la sameeyo waxyaabo dhiirigeliya la sameeyo oo lana socdo oo meesha joogana la ogaado waa markaynu nidhi aabbihii hooyadu waa meelaha heblaaya meeda ama hebelme isagoo maqanay islaantu hooyadu been sheegtay tiraaho way joogtaa inantii ama inankii wuu joogaayo kale ee dabadeedna hadhowto dhibtu ka timaado waxa kale oo halkan si wanaagsan u tababar qaada qaybta koriinka dhaqanka ilmahaasu labuunbuu mid noqonaya da'daa markuu soo gaadho kuwii yaryaraa idabdaray barteen laakiin waa la qaban karaya da'dii hore laakiin da'dan markay gaadhaan cid bay raacayaan
cidda ay raacayaan waxa laga yaabaa waqtiga qaadka la bilaabo qaar 12 jir iyo 13 jir la qabtay iyagoo xashiishad iibinaya oo marka asxaabta yeeshaan taas markaa waxa la doonayaa in arintaasi aad loo ilaaliyo waqtigaas oo la eego qofka loo garanaysa dhaqankiisu waa waqtiga uu korayo marka waa in dhinacu u korayo aad la socoto lagana fakiro waxana maaha waxaynu loo maalmood ku dhameyn karayno iyo aynu kelmad ku sheegi karayno laakiin waa inuu dhaqan wanaagsan marka uu koriya ilmahaas lagula socdo aan lana dayicin aqalka haduu isku xidho ilaa wuxuu buu baranayaa dee imika waadigan og adduunyada waxa ka socda halka waxa ka dhaca kulay xagga marka la eego ama xisaabta oo kale iyo wixii saynisyada iyo wixii la xiriira waa halka aasaaskoodu ka samaysmo marka waxa laga yaabaa ilmuhu halka hadii waxyaabaha midalan macallimiinta laga xiriiri kara in fahmaysan oo idinku jirtaa in kalena kulli way jirtaa waxa la yiraahdaa markii hore ilmihii wuxuu soo bartay isugeyntii iyo isku dhufashadii iyo isu qaybintii iyo waxaas markii hore soo bartay halkan markuu soo gaaro waa marka xisaabaadkii cilmiga ay bilaabanayaan ma garanaysaa la xalinayo xisaabo xalin oo kale iyo waxay dhahdaan basic algebrada iyo geometriga oo kale iyo halka lagu baro caruurta halkaas marka haduu ilmahaas u seego oo aan marka lagu ilaalin da'daas inuu ka gudbo halka dugsiga sare markuu galo ee uu bilaabayo malaha asaas koltaanu asaas lahayn asaaska waa kan xisaabtii baynu ka soo qaadnay oo kale luqada waa la baran karaa qaar jeeyno ka soo baxayba muddo yar ku barta luqada kale laakiin xagga luqada lafteeda hadaan idin sheego qofku luqadu u dhashay hadii aanu si wanaagsan u aqoonin luqada kale si fudud uma baran karo imika mesela laba yar baad keento mid af Soomaaliga u yaqaana midna af Soomaaliga ma yaqaano عربي بابا دو sheegtayba kelmad carabiya dabadeedna waxaad ku tiri wuxuu yiri arnabo kale oo ma garanaysaa bakaylo kale ayay soo qaadnaa inta badan in bakayle kiif Soomaaliga yaqaan marka tiraa waa bakaylo waa maxay marka tiraa arnabku waa bakayle uu garanayaa markiiba dabadeedna si fudud buu fahmaya xataa luqada carabiga ahayd laakiin hadaad aanu garanayno ila waa maxay bakaylo hadana oo tiro bahal yar oo dhagadhaadheero imisa waxba dhagadhaadheer dabadeedna aad waxa ku meeraysato ma baran kara marka luqadii kale marka waxyaabaha muhiimka waxa kamid ah luqada qofku u dhashay inuu barto xisaabaadkana in la baro luqadan kale ee marka luqadii diintiisuna waa muhiim iyadoo in la baro iyaduna meesha way ku jirtaa laakiin halka hadii aan marka lala soconin da'da dugsiga dhexe fasalka 7 haday 8aad kaga baxaan dugsiga dhexe midalan 6aad 7aad iyo 8aad hadii aan ilmahaasu si wanaagsan ugu najixin marka dambe hankiisa dhinta waayo dugsiga sare markuu galo waxyaabo badan oo ka maqan silsiladii waxbarashada ayaa ku dhaca dad markuu arkay inaan u sameyn karin hankiisa dhinto wuxuu waxba ma qaban karayo kala hankiisu qofka dhintana waxba ma qabto waa bilaahan waxba qaban maayo wuxuu noqonayaa sida qofka xidhxidhanada ku jooga halka qishkana uu baranaya marka wuxuu teergareynayaa meel walba inuu kaga baxo inuu cid kale wixii qabanaysa ka eegto marka xaaladaas waa xaalada ugu adag ay tahay in si gaar ah loo eego waliba labada waalidna inay si adag u wada shaqeeyaan halka marka uu ilmuhu ka baxo hadii uu ka dhaafo secondary dib uma geysto dugsiga sare wax dib uu geystaa ma jirto waqtiga haduu halka ka baxo waayo wuxuu leeyahay asaaska uu ku galaa dugsiga sarena ma laha waxyaabo doorasho la kala dooranayo waxba la wada dhiganaya marka haduu halka ka soo dabaasho akhlaaqdiisii iyo hankiisii uu kala yimaadey waxbarashadiisii asaaska ahayd waxay noqonaysaa marka dugsiga sare si fudud buu uga baxaya laakiin mar walba waxaad ilaalinaysaa tanu ka soo baxay uu soo dhameeyay dugsigii saruu soo galay kii dhexe ka soo baxay dhibaatadii
way u fududaatay guri buu isku xidhay qaybtii dhaqankaad ka tagtay markaasoo kale waa marka ay timaado markay secondary-ga soo bilaabaan haddii aan qaybtan dhaqanka iyo dhaxgalka dadka iyo waxyaabaha iyo wada shaqaynta iyo marka aynu hore u soo dhaafnay aan waqtigaas aanu ilmahaasu ka dhisnayn dugsigii uu ka baxayaa waxna uu garanayaa ardayda kalaaskiisa isaga ugu xariifsan laakiin waa maxay mushkiladu hooyadina wax boonaysa fahmi waay aabihina wuxuu odhanayaa fahmi waay way qaybtii dhaqanka baabaaday qayb dhaqan baan jirinba inuu dadka la dhaqmo oo uu ka xidhiidh maro dadkooda iyo qaybihii hore siyaabihii aynu niri waa in loo soo dhiso ciduu la macaamilayo siduu u soconayo iyo waxyaabaha ilmihii waa kan waxbarashadii caadiga ahayd secondary-ga wankaabuu gelayaa laakiin wax ciidankiisa saaraba cidi heli mayso goonitaaqa buu noqonayaa dabeecad gaaruu yeelanayaa ciddan buu la xidhiidhayaana ma jirto sidaasuu dabeed iskaga weynaanaya waxaa laga yaabaa hadhowna inaan waalid iyo ixtiraam iyo waxba toona aana iman marka waa inaan loo go'doomin uun aan la odhan ilmahaygu iskuulkii muxuu ka keeneed ogaato ta ka khatarsani ee ilmaha waxbarashadana ku hogaamisa najaaxana ku hogaamisaa inay qaybta dhaqanka tahay waa inaad taa ogaato waayahay waxa kale oo markaa yimaada caruurtu waxay ku soo kala hadhay dugsigii dhexe markay ka soo baxayeen dabeedna secondary-gii markay yimaadeen qaarna waa kuwanoo way dabaasheenoo waxbay garanayeenoo way ka soo baxeenoo dabeed secondary-giina si hawl yar bay uga baxeen qaarna waa kan hankoodii ku soo lumay dugsigii dhexe ee dabadeedna qaybihii ugu dambeeyey ee dabadeedna ay ku soo hankoodina ku soo baabaay ee dabadeedna markaad imika tiraaho maxaad injineer ma noqonaysaa wuxuu halka inuu yiraahdo xisaabta aan ku xumahayo ma geliyo halka maxaad sameynaysaa waxa ma geliyo halka maxaad sameynaysaa waxa kale maxaa soo haraya markaa waayo waxa weeyaan secondary-giina tamar lamu iman oo ku soo baabaay dugsigii hore hoose ayaa dugsigii dhaxay ciladani ka soo raacday markuu ilmahaasu soo galo ee la yiraahdo jaamacad ha galo jaamacadani la gelayaa dadku waxay sameeyaan inta badan meelo badan bay tala ka qaataan la iskama tago jaamacad heblaayaan gelayaa ilmahayga jaamacad heblaayuu galay horta ilmahani jaamacadan uu gelayeed u dirayso muxuu ka baranayaa waxaanu baranayana suuqiisu waa maxay ileen wax waliba suuq buu leeyahay oo maadadan ilmuhu baranayo hadhowta doonayo inuu galo qaar aan meel walba hadduu tago cidina shaqo siinayn baa ku jira iyo qaar isagoo aan yacni sanadka labaad markuu yahay cid waliba shaqo siinaysaa jira markan tani waxa weeyaan waxa markaa jaamacadda uu tegayo cid aqoon u leh waa in lagala tashadaa oo la yidhaa ilmahani waxa weeyaan jaamacad buu gelayaa maxaa shaqaynaya imika halkeennan markaynu eegno boqolkiiba 3 qof dawladdu ma shaqaalayn karto hadday 1,000 arday soo baxaan 30 lama shaqaalayn karayo ma saamaxayo dhaqaalo haddii la eego ma garanaysaa shirkadaha waddanka ka jira waaweyn mid waliba waxay haystaa 20,000 oo arji 2,000 wax ka badanna ma qaadan karto marka ilmahaagi horta marka ugu horeysa waa in markanuu jaamacadda gelayo loo eego maxaa uu hadhowto ku shaqaysan karaya wuxuu noqonayaa maadooyinku isku qiimo maaha haddii markaa uu ahaa qoladii markii hore dugsiga dhexe ku soo hadhay haddana secondary iskaga baabaaday wuxuu kole iska qaadanayaa waxaasuna shaqayn maayo hadhowto laakiin hadduu taa ka soo gudbay marka dambe waa in si adag loo tashado oo la yiraahdo maadadan ilmuhu qofku baranaya hadhowto sidee u anfacaysaa maxay u qabanaysaa ee aanad odhanuun jaamacad hay galo okay waxay keentaa markaa taasu ilmaha haddaad markii hore dhaqaalaha soo bartay oo waxyaabaha maaragtay ninbaa maalin dhaweyto meel igu yimi dabeedna nin kalaa noo yimi wuxuu yidhi inanka halkaa fadhiya aynu ka nimi dabaddaa nuu soo baxna
wuxuu yidhi inankaas waanu isxignaa waxaan koo idhi markuu secondary ka baxay jaamacadda intaad ku jirayso oo dhan aniga kaa bixinaya jaamacadda waxaad yeelaysaa sidaa ogow wuu yimi wuxuu yidhi reerka iyagu waa faqiir marka ma doonayo inaan jaamacad galo adeer waxaan doonayaa intii aad igaga bixin lahayd jaamacadda inaad i siiso waayey baan ku yidhi buu yidhi kiina halkan u fadhiyaa waa 3 cisho ka hor bay ahayd waxaan doonayaa inaad i siiso buu yidhi waayahay waa siiyey buu yidhi waxaan siiyey buu yidhi $300 kaariyoonu iibsaday buu yidhi xabad bilayn wuudhana wuu iibsaday bilayn wuudhka waa garanaysaa dabadeedna dhakadu ka saaro halkan bacadlehe kabaha lagu iibiyo geeyey buu yidhi wuxuu ku yidhi wakaa inankii Hargeysa intaasoo guri buu ku leeyahay buu yidhi intaasoo guri ayuu Hargeysa ku leeyahay dhaqaalihiisuna imika intaasuu maraya reerkoodiina sidaasuu anfacay marka maxaa ku jira qofkaas uu kaga duwan yahay kana aabihii hooyadii wax siinayaan kolba inta dukaan loo dhiga haddana gubaya sida soo koreen baa kala duwan training kan aynu leenahay in la soo baro sida dhaqaalaha loo manage gareeyo adigoo tijaara oo ay kugu filantay dhaqaalaha laakiin haddaad marka hore soo train garaysa ilmahan oo dabadeedna tiraaho bal adigu wax ku bilow oo samee uu sameynaya waxa jira maalan caruur yar imika caalamka oo dugsiga sare ku jirta oo maalintii bishii marka la eego $2 milyan shaqaysta oo gurigooda kaga dhex shaqaysta oo dadka u dhiga maalan computerka iyo computer programming oo meel bay furteen ambay leeyihiin dabadeedna qof walba waxay yidhaahaan bishii $2 bixi milyan qof bay markaa wax barayaan mid walba $2 oo qura bishii ka qaadayaan maalan dabadeedna waxay keenayaan $2 milyan marka haddii aanad barin ilmahani inuu shaqaysto inta badan wuxuu ka odhanayaa beri baanu dalal dibadda baanu joognay Soomaalidu waa iska reer guuraa dabadeedna mid baa ku imanayo waa xageed ka timaa markaas oo odhanaya dal Hiblaayan ka imaaday dhulka siraadan baanu wuu wareegayaa marka qofkaas oo kale waxa weeyaan ilmahan qofkan waa inuu marka hore deganaanshiye leeyahay hadduu imika guriga ku joogo oo aaminsan yahay waxaan uu bartayna dan ka lahayn laakiin uu leeyahay meeshan geedibaan oo aan iskaga tagayaa xal ma jiro marka horena maad ku soo teer garay ilmo yar waxa jira ama hablo yar baa ka doonaan bahan noqdaane oo intay wax yar qabtaan ama nijaarad yar bay sameeyaan ama wax yar bay sameeyaan oo qaar badan aqaano oo dabadeedna dhul bay geliyaan maalan jaga yar buu iibsanayaa mid kale uu ku bedelayaa mid baan arkay maalin oo guri buu kaga soo baxay weyn waan aqaanay markaas aan ku wariyay gurigan ma soo taxaafada xagga deganeed ma kiraad soo doortay dhagaade ma kana aan dhisay oo xageebad ka ma saar oo hay'ad waxaan ku weydiiyay aad mad kan dhistaa waa soo dhawaan baan dhisay reerkiina guri ma aan dhisay halkaan laba guri oo kala aan ka dhisay oo xageed ka shaqeysaa iskuul halkaan waan ka shaqeeyaa markaa iskuulkii buu dhandhameeyay jaamacad halkaas lecture baan ka bixiyaa meel kale halkaas oo waxbaan ka sameeyaa wuxuu aaminsan yahay inuu degan wax soo saari karo waxyaabaha loo baahan yahay imika maalan aynu u baahannahay khaasatan inaynu kala hadallo dhalinyarada waxa ka mid ah sidaynu sheegnay waa ta koowaade horta waxay baranayaan inaynu eegno beer baabuu bartayba maalan ninbaa wuxuu igu yidhi baloog dhula ayuu wuxuu ku sameeyey bahalkan green house-ka la yiraahdo 3 mid ku sameeyay 4 mooyi wax aynkaas meelahan uu ka sameeyo dabadeedna wax weynba maaha waxbuu isu geeyay midkii waxa laga yaabaa 1,000 iyo wax in loogu sameeyo waa qaybtii dhaqaalaha aynu ka hadlaynaa u dambeysay marka jaamacadda galayaan yani inay waxay dooranayaan dabadeedna wuxuu yiri waxaan sameeyay 3 baan dhigo waxaan ku yiri oo bahalaha imisa ka soo baxa wuxuu yiri bis $3,000 baa ka soo baxa wala Mareykan wala Yurub wala meel inta laga heli karaa ma jirto caalamka waa blog yar xaqaana waxa uu weeyaa 48 mitir xaqaana waxa uu weeyaa 90 mitir waxa uu isu geystay wax yar oo kale uu geystay
waxbuu geystay dabadeedna uu soo saaray horta waxaan halkan la yiraahdo waa cajiib iyo ma garanaysaa waa taym doonayna inuu ku beerno qofku inuu اعتقاده inuu wax samayn karo dad dhan oo imika inaga mid ah ayaa cunto la siiyaa ka war oo xoolo leh oo wax walba sameeyay waxyaabahaas maxay keenaan iimaankana way ka qaadayaan oo waxba ku tarimayaan xoolahaagii oo leedahay haddaad kolba meel u dooratay yaro sareena waxa weeyaan weliga ayaa laha kob cagaar la ka soo tutulmays waxaan idinku soo gabagabeynaya nin haddaan idiin sheego waa garan leeyahay laakiin magaciisa sheegi maayo ayaa wuxuu yiri ilaahay baa wax siiyay buu yiri adduunyada marka la eego bariye hore dadku xantida balahay ninkaas wuxuu lahaa baabuur iyadoo dadku baabuur lahayn wuxuu waxaan lahaa baabuur iyo qori iyo baastoolad iyo geel malaadee dhowr boqol ah iyo ari ciida ka badan ayaan lahaa buu yiri wadanka marka la eego qofka intaa haystaa wuxuu ahaa cid ugu taajirsan wadanka bariga wuxuu yiri waxa igu dhacay gaarigii ay xabashadu iga qabatay buu waa la iga qabtay gaarigii markii gaarigii la iga qabtay ayaa waxa igu dhacay buu yiri qorigii na gaarigu la socday buu labadaas halkaas ay soo raaceen bastooladina way iga luntay buu Soomaalida bariga xoolaha kala qaadi jirtay geelina waa la iga qaaday buu yiri arigiina hulubba iga galay hulubba mala garanaysan waa cudur gam ka siiya si firun baan mar quraysi soo taagay buu yiri dabeedna wuxuu yiri anoo madaxa haysta ayaa xaaskiitu waxa tir wareede bal waxa yeeshaa arigii dhintay halkoodan meelaha yaala qaado waxay gooyaan inoo soo sii intii baan soo qaaday buu arigii waxba kama harin geelii la qaad baabuurkii xabashii qabsatay gamba ma haye buu dabeedna wuxuu yiri wixii baan soo qaado Hargeysa aanime markaan Hargeysa ime baan wuxuu yiri iibiyo wax yar yaani kiilo marka bariis oo kale iyo nus kiilo wax yar oo caynkaas ay ii gooyeen reerkii u diray buu anna wuxuu yiri maalintii waan ka qadiyay kambayma soo harin buu anoo aan quraacan oo bila quraaca ayaa suuqa soo baxay buu waxaan istaagay buu yiri meel lagu shaxayo ayaan markaan shaxdiis dul taagay waxa igu soo dhacay buu yiri wax lagu soo koriyay dadka halka iska farfadhiya waa saaqidiin baa igu soo dhacday buu yiri shaxda waa ta saaqidka waa isteen maxaa ku dul dhigay waa ka booday buu quraacana maan soo quraacan waa bal hanna walaha hanbu ku soo koray wuxuu yiri nin gaari iibinaya ayaan u tagay saari buu war gaariga misaad siinaysaa maan quraacan buu yiri biyo maan cabin saari buu berga lacag tiro baawar bay lahayd 5,500 baan siinaya 5,500 baan siinaysaa ha marka hore ma wuxuu wax badan buu qabsado ariga daayo aakhirka imisa 5,500 waan soo noqday buu yiri waxa yiri buu lacagta xageed ka doontaa 5,500 xageed ka doontaa toban nin baan calaamadsaday buu yiri aanu isnaqaano dhaqaale leh mid walba 500 ka soo qaad waxa tira war hebel in adeerta wati gaariga la qabta hawlaan sameeynaya 500 oo keenay ama subaxii dambaan 10kii sumaray buu 5,000 baan soo qaatay ninkii baan ku soo noqday sayri waree gaarigii shaniga daayo ka deyn maayo oo 5,500 shantaniga qaad ma soo yiri buu ma shantana waan ka qaadaya adeerta kale marka doonta ka gaarigii baabar iska soo istaadhay buu waa ninkii shalay taan quraan ninkaas markaa muxuu sameeyay horta wuxuu ka xishooday inuu waqtigiisa yaani maalayaan kullumiyo waxa lagu soo koriyo ku soo koray in aanu yaani wax walba inuu sameyn karo laakiin aanu waqtiga si bilaash u lumin markii labaadna hanbuu lahaa hadii aanu han lahayn waxa ma sameeyeen wuxuu yiri markiiba intuu gaarigii soo kaxaystay ayaa rakaabkan qaadi jiro halkii tuban soo fuula waa ka gaarigii maalintiiba wuxuu jeebkan buuxsaday gaarigii baan dadkii baan qaaday reerkii baan ku soo noqday gaarigii baan joojiyay buu xaaskii baa igu tiri buu ayaa igu dagaal bay igu bilowday buu war hadaad gaari haysay oo caynka xoolahan haysay
ومحر ربع عرض نوصل ترت محد واحد أكسر نوقف صوتي ويدي أنا كنا ربع بريسي ربع سكر يبعد نوصل حتى أنا ما نقول عم بقول الصبحة أنا أنت أو ترى أنت هي أنت ساعة مركز تذكر نوع عصا كلا مركز دينا عشقة الله أجو إن الكوريين نوبا هنا أنا بطلب بدم بصامر طل لقى الشقيستو أو الشقة وحلقة صارة أي وجوب بدن تهاي ما أنا رجع طل كان كبدن توتها واحد نكهذا الله هل بلاك بون أنتوا تجوا حاجة يسوكيستي أيوة الله بحبضات كسبيو بحالكية مكرنا الساعة أيوة كسبي جرين هاوس ير أو طبعاً بس هي تمانية يسوق وكانوا طبعاً حيدور كنا $1 بان كقاطع قلا مالين وحن جوبشوجوها نبى ليري ورياه ماشى الهلاليو لما بقوله $1 قاضو وهرجيسة وحيل محل لما بقوله $1 ومحي وحكوا هذا الإنسان ترمي بها وهذا المحل عاي وحيل ده وحن هلا لح بقوله متطور بقوله $1 بنصبوعي هلا إذا نوع حليد لما بقوله $1 قاض وحكيت ككنتها بيرير بوس ما يستوى تمانو يبيه بير بوس ما يستوي gurigiisu meel dajiyay tamaandho iibiyaa dhowr halaadna uu leeyahay way dhalaan caanaana magaaladu keena maalintii waxaan helaa buu intaas oo $100 adna waxaad leedahay bil inta keen marka shaqo la'aan jirtaana ma jirto laakiin dadkii ay ahayd in loo tareen gareeyo oo loo tababaro inay shaqaystaan inay iimaan yeeshaan inay dhaqan yeeshaan inay dad noqdaan dayacaad baa ka jirta dayacaadaasna qaybta ugu badan hooyooyinka ayaa hagaajin kara marka waxaan idin sheegayaa deegaanku qayb weyn buu ka qaataa horta dumarku marka la eego iyo ragga maanta marka la eego de waxaad oranaysaa dumar mooyee rag ma joogo wadanka badankiisa laakiin waxaan idin sheegayaa waxa la doonayaa waxa aynu isleenahay inaynu fulino oo dad markaad adigu fuliso eed xigtadaada u sheegto eed jaarkaagana u sheegto waxay noqonaysaa wax markaa fula waxyaabahan arkay waxa ka mid ah masaajid baanu maalin ku tukan caruur yar baa soo yaaco kuwan aynu ka hadlaynay la tababarinayno sida aynu leenahay marka halka mariya waxa la baro 5 nin bay kabi ka qaateen la yaacay qaar baa masaajidka soo galay oo iyadu waxa leedahay ilmi masaajidku qabtay laakiin de tababar ma siinino akhlaaq lama barino ma garanayo tarbiyad ma leh ninka ugu horeeyo cagta dhakada ka saaraya markuu masaajidku tukanayo dabeedna mid kale u dhigta maroojinaya looma oran war waxaan waa waxaan banaanay marka ala kulli xaal hadii aydan su'aalahaynin waxaan wax halkan ku dhamaanaya maaha waa waxa ay tahay inaynu wadno oo qof waliba halkiisa ka wado una baahan imika in ma garanaysaa si ijtimaaciyana loo wado sidaa aynu imika u noolay inagu dadka u noolo aan jirayna wadankoodii waa laga qaaday taasaan idin sheegaya way waxaan dadkan wadanka ilaaliye difaaca waa dadkan waa kuwa aad aragtay timuhu sideeyeen iyo suuqa markay marayaan sideeyeen waxa sunbaa isu soo hadhaya bari dhow dad waaweyn noqonaya marka hadii aan imika laga hortagin waxaynu haynaa wadadii ay hayn jireen dadkii wadankooda cid kala qaadata marka halkaasaan ku soo gabagabeynaya hadii ilaahay noo su'aashan anigu qaba waxa weeyaan horta bal ilmaha inta la korin waalidku caan ku noqon kara awalan hooyaha iyo aabaha murabbiye noqonaya qaab nooceeya laga rabaa su'aashan qaba waxa weeyaan waxa aad looga qaylinaya ama aafa ah oo ku soo biirtay wadankeena Soomaaliland mukhadaraadka kaasoo oodaha soo jabiyay oo darbi walba yaala daayartii dayacnayd ee darbiyada fadhiday ay si basiida u helayso awlaad imika aadka aw faraha baas ugu hayo waxa kamid ah da'da 13 ilaa iyo 19 inta u dhaxaysa waalidiintii waxay moodayeen ilmahoodu inuu ma garanaysaa asxaabtiisa raacay ma oga oo waxa ka maqan xogogaalnimadii iyo khatarta jirta maanta ayaa waalidiin badan ka maqan hadda hadii aan usbuuca gudihiisa xaafadayada oo aan ka fogeyn halkan imika muxaadarada ku joogno ka dhacay qiso
muddo 3 cisho ama 4 cisho oo kala duwan usbuuca ayaa waxa lagu soo tuurayay maalin walba xaafadda xashiish ku xidhan bacyar oo guntan ama 2 bacood xashiishka marka lagu soo tuuro aan aragna waxa weeyaan waa irbado la isticmaalay oo afka laga jabiyay waa wixii lagu mudayay siliishkii iyo irbadii isla socota iyo irbada laftarkeedii oo tan afka laga jabiyaa waxa la socdo cudbigii oo dhiig leh markaan aragno waan yaabnaa talo xaafadda mid bugtaa joogta maalintii koobaad maalintii labaad maalintii saddexaad dabagal baan sameynay waxaan isniri bal xaafadda farmasiyada u dhow soo weydiiya in cid dawooyinka looga soo qaado oo cid guriga ku bugta xaafadaha ku bugta ay jirto intii noo dhaweyd waan soo weynay waxaan naloo sheegay markii dambe oo in yaro farmasi agteeda haysta uu sheegay inaanu soo sawirnay irbadaha ama aanu qaadno irbadii baanu sawirnay wixii xashiishka intaan dhulka ku qubnay baanu sawirnay waanu geynay wuxuu yiri waxaan waxa weeyaan daraagis waa dawooyin si sax ah loo isticmaalo oo dawooyin ah laakiin si qalad marka loo isticmaalo daraag noqonaya wuxuu waa irbado aniga oo ku halka igu jira waan qariyaa daayirta xaafadda igu wareerisa niman badan oo waaweyn ba igu wareeriyo habeenkii weydiiya nafta la igu keenay anigu ma iibiyo ilaa ma qof dhakhtar u soo qoray oo dawadii sito warqadii waxa iibiyo farmasiye laakiin gaara oo carruurta ay ka doonato maadaama ay dhibaatada inta leega jirto oo xashiishadii iyo khamrigii de farmasiyiga dawada ay taalo laga soo iibsanayo oo si qaldan loo isticmaalayo carruurtina ay fahantay sidoo looga hortagi karaa waalidku sidoo si gacanta isku qabsan karaa bulshadu si isku wacyi gelin kartaa ka dumar ahaan doorkeen ka qaadan karnaa aad baa u mahadsantii laba su'aalood oo adag weeye aadna muhiim u ah su'aasha koobaad beri baa waxa la furay magaalo tuulo ah ayaanu tagnay iskuul baa laga furay iskuulkii la furay ayaa la waayay meesha markaa waxa deganaa ilaa 600 oo reer carruurta markaa eeriyadaas joogtay 3,000 baa lagu qiyaasay iskuul yar oo qaadaya ilaa 60 carruur laga dhisay waxa la waayay ilmo kaliya oo la keeno dabadeedna qadiyadii baa adkaatay waxa la yiri maxaynu sameynaa waxa la yiri aabbayaasha iskuulkan horta lagu daray intaan carruurta lagu darin oo bal iyaga bal waxay mas'uul ka yihiin horta ha loo sheego waalidka waayo iyaga ayaa hortaagan oo ilmo walba xoolay raacsanayaan ma oga mas'uuliyadda ka saaran tan waalidka horta dhibaatooyin waxa jira imika wadanka haysto aad u fara badan ninkii aabaha loo oran jiray horta uu saaqiday badankiisa dumarkiina 2 hawlood baa ku soo baxay hawshii guriga iyo hawshii dhaqaalaha in badan oo kamid ah ilmi markaa automatically uu dayacmaya markaas arintaas waxa jiri jiray in la sameyn jiray berigii hore santaro xaafadaha imika meelo dhul laga sameeyaaba ma jiraan filaya dabadna waalidiinta iyo cid walba halka la isugu keeni jiray laga hadli jiray laakiin aqoon imika inaga dhimani ma jirto de masaajidadii baa koona walba ku yaala meel walbana waa laynaga wacdiyaa wax walbana waa laynoo sheegayaa haddana garan mayno meel wixii naga marayo marka arintaas bal in si gaar ah looga doodo oo la yiraahdo war waalidka wax tababari kara ilmaha soo saari kara laftiisu muxuu baahan yahay waxaynu ku sameeynaa sidee loo sameeyaa wacyi gelin fara badan baa loo baahan yahay ibn aadankana waxaas marka dambe way maraan oo way shaqeeyaan laakiin de waynu ognahay oo daraagiska ugu weynay imikayna haystaa waa qaad kaasa dadkii sabtiya xad baseejiyay markaas arintaas waa arin muhiim ah waa arin u baahan in la baaro oo dabadeedna la raadiyo sidii ma garanaysaa loo sifayn lahaa ee loo heli lahaa dad waalidiin ah oo iyaga laftoodu mas'uul ah waayo macallinku hadduu mas'uul ba ahayn de ardaygu ma soo baxayo waad mahadsantahay su'aashaas waa su'aal muhiim ah tan mukhaadaraadka taa markaa waynu halkaa kaga hadhimayna haddii ilaahay idmee idinku dumar ahaan anigu waxaan qabaa haddii dumarku shaqeeyaan marka tarbiyada carruurta laga hadlayo xilisa saaraan 80% problemskan in haysta iyagu way xallin karaan kaligood wayda waa hooyadii ilmihii inta badan iyada dul joogta dumarkuna imika sida raggii nooga dhintay uma dhiman
markaas waxaan filayaa in badan ay qaban kartaan waana isku xidhmi kartaan xaafado yaryar baa isugu xidhmi kartaan dacwad baa loo baahan yahay dacwadan uu ku jiro ciidan fisqiga iyo daraagska iyo mashaakilka fidinaysa tu laga horgeeyaa loo baahan yahay in la sameeyo marka haddii ilaahay idmo arrintaasu anigu waxaan isleeyahay nin baa looga sheekeeyey baa la yidhi salaada haddaan aanan tukanin waxa weeyaan qofku diintu ka baxaya dabeedna waxaa laga hadlay salaad la'aantu waxay tahay in badan baa laga hadlay dabeedna intuu istaagay buu sheekhow tolkay waa dadkii reer miyiga ahaa iskana aaminsanaa diintuba tolkay iska tolkay in yar ilamu talinaana la taag waay buu yiri ma is oran kartaan iminka waxba ay noo dhiman inta muxaadara inta masaajida inta wax la inoo sheegayo marka waa inaynu isweydiino xaggay sidee wax naga yihiin oo dabeedna xal u raadino tan muxaadaraadka iyo waxan iminka dawlad ahaan iyo anagu wadanka waan imaadaa intaan iminka joogay waa shayga ugu hadalhaynta badan ee laga hadlayo ee fadhab laga taagan yahay markaad eegto xukuumadda iyo dadka iyo cid waliba ay ka hadlayso goor walba ee la leeyahay waxa ku hogoostay 12 jir baa suuqa ku iibinaya draagska waxa markaa qaar waa kuwan soo gala guriga dhexdooda lagu beeraa dooxaasa lagu beeraayo adigu waxaad moodaysaa wax geed dooxa ka baxay ninba dooxa iskaga beeranaya dhirta baxday baad moodaysaa halkaas uu ka goynaya uu iibinaya kuwaas si gaar ah loo kantaroolay dee u baahan yihiin iyo khamriga waxa la halmaala laakiin ka farmasiyada waxaad arkaysaa farmasiyada caalamka oo dhan waa la ilaaliyaa qof aan cilmiga farmasiga aqoon looma dhiibo waa meelaha dawooyinka inta iminka ay dawooyin naga disho iyo inta ay cudur naga dilo wax badan inta dawadu naga disho inay yaro 7 jir 8 jir baan anigu farmasi ugu yimi marka saayna barada wuxuu sameeyay koodii maalinimo ma ilaa labadii baahaydo intuu aabihiina iska seexday oo farmasiga iibi waa 8 sanadood saayna adeer ciiriq baa halka ay ka taagan maxaad haysaa xaggan buu jeesto midun buu ii dhiibay waa 8 jir marnaba kama weynay intan uu leeyahay farmasiga lagaga tagay waxa la sameyn jiray dawladaha meelaha marka sida loo kantaroolo farmasiyada eeriyadan aynu deganoo dhan waa in 2-3 farmasiyo qori ka furmaadaan waa tukaan nin baad arkaysaa kal saddexaad aad ka timi oo geelu raaci jiray oo geel jiruha waad u timo farmasiyo war heedhe maxaad sameysay farmasigana la dhiibay ku leeyahay ma ko ana iibiya dawooyinkuna waxa dadka laaya wallahi marka taas lafteedana in laga hadlay u baahan tahay oo dabadeedna talaabada ahayd in laga qaado farmasiyada inkastoo meel walba iminka ibn aadanku tan yeeshay oo haddii laga hadlo qaylo badan ay sameynayso laakiin waa in la yiraahdaa way jiraan jaamacado soo saara dadka farmasiyada barta cilmigiisa marka in qofkan liisan la siiyo farmasiga liisan la siiyo lagu kantaroolo haddii kale laakiin waxa dhacayo oo dawooyinka caadiga ah ee loo qaato dadka waalan iyo waxa la siiyo ay isticmaalayaan aadiyan oo ay cunayaan dabadeedna ay ku tawaqayaan markaas laakiin waxa la yiri haddii uu suuq hadduu jiro badeecadu way timaadaa marka waa maxay macnuhu dadkii iibsanayay baa jooga marka haddaan dadkii laga shaqaynin weligeed la kantarooli karmaa waayo dadkii waxa jooga qofkii macmiilkii baa jooga macmiilkii baana lacagtiisa doonaya dabadeedna la waaymayo wixii ugu horeyn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baan kugu mahadnaqay walaalkii maxamed Yuusuf Farto ugu horeyn sidaa quruxda badan aad noo waysay in maxay tadan su'aashida ugu gudagalo waxaad ka hadlaysay tarbiyada awlaadda amba qaabka awlaadda loo tarbiyaynayo oo soo maraya qaab kala duwan marxalado kala duwan marka ay korayaan maxay tahay hadii ay dhacdaba oo dhacday ardayga inta hore aan soo tarbiyanin ilmaha uu ka soo gudbo xaaladaas uu soo gaaro xaaladaha 15 sano amba wuxuu kor u dhaafaa isla markaasina uu tarbiyada haysan tarbiyada waalidka uu soo helin sidee uu uga gudbi karaa xaalad marka isaga ay soo haduu maxay tahay ahaado waqtiga dambe amba ardaynimo xagga dambe uu kaga soo biro sidee uu soo dhisi karaa hankiisa amba uu himilada tarbiyada uu soo nooleyn karaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله سؤال شاسو horta waa su'aal adag
waayo waxaynu nidhi geedku markuu baxo sida marka dambe يعني lagu toosiyaa way adagtay horta way ka adagtay markii hore tarbiyadiisii laakiin waxyaabo la sameyn karo ayaa jira marka ugu horeysa si kastaba ha noqotee waxa muhiim ah in horta qaybta akhlaaqdiisa la soo celiyo iyo diintiisa say doontaba ha noqotee waayo dhaqanka ayaa xukumaynta kale waxbarashadan iyo waxan wax xukuma dhaqanka haddii lagu guulaysto markaa in la soo celiyo dhaqankiisii ama markaa ha lagu xidho culimo ama ha lagu xidho dad kale oo ma garanaysaa markaa wax ka dhageysanayo ama deegaan kale oo loo bedelo oo waxan yacni eeriyadan uu sidan ku noqday ka duwan oo la geeyo ha noqoto horta waa in marka hore aan la odhan waxbaro laakiin waa in lagu dadaalaa in dhaqankiisii iyo diintiisii iyo qiyamkiisii in la soo celiyo taas haddii markaa lagu guulaysto qofkii markaa ibni aadanka awoodda iyo maskaxda ilaahay geliyey wax walba muddo yar buu ku qaban karaa markaa waxay noqonaysaa inuu si fudud uga dabaalan karo laakiin lama odhan karo qofkii oo sidaas u soo koray in haddana la sameeyo in la yidhaa haddana waxbarasha dib wax u baro oo waxbarashadii aad ka saaqitay dib u baro laba siyood unbay ku iman kartaa dee in ilaahay soo hadeeyo isagu markaa yidhaaho noloshan aad ku jirto bedel laakiin badankooda taa laga heli maayo marka waa in la teerigareeyo oo lala kaashado dad badan sidii qofkan horta marka hore akhlaaqdiisa iyo suluugiisa iyo sidii u soconayay loo soo celiyo haddii taa lagu guulaysto tan kalena dhibaato yeelan mayso